Muuqaalkan waa mid ka mid ah wadamada Eeshiyaanka dabcan ma xaqiijin karayo wadanku yahay balse waxa ka dhacay halkaasi waa wax cajiib ah oo ka duwan waxay muuqaalada baraha bulshada maalin kasta aad ka daawataan taasoo ah ninkan aad u jeedaan gabadh yar oo mindi qoorta uga haya isla markaana waa nin lagu qabtay mid ka mid ah eelboorada ama goobaha xafiisyada ugu muhiimsan ee dadweynuhu ee dalalkaasi Eeshiyaanka dabcan sida ka muuqato muuqaalka halkaas waxaa jooga askar iyo ciidamo kuwaasoo u sheegaya inuu joojiyo falkan ninkaasi waa nin weyn oday oo da ah oo sita mindi isla markaana gabadha ayuu qoorta ka saarayaa mindida isagoo doonaya uu sheegay waxa uu u baahan yahay in loo sameeyo amaba gabadha uu dili doono si isagoo naftiisa daba ninkan kale oo odayga oo filaanada sito wuxuu u muuqdaa inuu yahay mid ka mid ah saraakiisha ee halkaasi ka howlgalaya wuxuu u sheegayaa inuu isdejiyo isla markaana gabadha uu iska fasaxo beddelkeedana isaga uu qabsado ninka odayga dabcan waxay ku tusaysaa inuu yahay qof karti leh oo awood leh isla markaana ka duwan oo ka aqli badan yahay inta meesha joogto sidoo kalena wuxuu muujiyey wuxuu diray geesinimo leh oo ah in nafta loo horgaro kuwa daciifka wuxuu leeyahay tuureydan iska deji gabadhaana iska daa waa masaakiina iska fasax inantan yare ee qaylinayso siida oo aniga ay hayso beddelkeeda waxaad doortidna aniga igu sameey ninkii uu aqbalayaa oo isagii ayuu fasaxayaa waxaase ogolaaday inuu ninkan kale uu ku guulaysto isagoo xitaa danay ayay ugu jirtaa maadaama ninkan uu yahay nin sarkaala oo gabadhan maadaama ay ahayd dadka keliya ee goobtaasi dana gaara uu galay uu ka duwan yahay hadda bal nala daawada ee muuqaalka midida ayuu qoorta ka saarayaa ee gabadha ugu dambeyntii ninkaani waa ninkii odayga ka dhaadhicinayo inuu u soo wareejiyo isla markaana uu iska daayo buuqa oo siman kadib wada xaajood kadib uu ogolaaday inuu gabadha ku wareejiyo laakiin beddelkeeda sarkaalkeeda sarkaalka waa mid xariif ah oo ka duwan inta kale oo dadka meesha joogaan wuu ogolaanayaa in lagu wareejiyo balse wuxuu muujinayaa geesinimo aad u badan dabcan waxaa la isku dayayaa sidii looga badbaadin lahaa ee gabadhan yar sarkaalkan ama ninkan mid ahaantiisa masajiro ninka sarkaalka waa xariif in yar buu ismuujinayaa wuxuu yidhahda waxa doontidaa lagu sameynaa deetana ninkan isagoo dadkii kale uu ku mashquulsiyaa ciidamadii kale isagoo la hadlaya uu leeyahay ninkaana haysta aniga waxa doona ii sameeya ama ninkaana qaarijina oo sarkaalka ninka sarkaalka daf markiiba uu ka dafa tuureydii uu ku dafaa waa la isla xarbinaa dagaalaa dhacaayo ugu dambeyntii ninka gacanta ayaa lagu dhigay waana lagu guulaystay sii sheergaray muuqaalkan si uu meel dheer u sii gaaro haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir mahadsanideen muuqaalkan waa mid ka mid ah wadamada Eeshiyaanka dabcan ma xaqiijin karayo wadanku yahay balse waxa ka dhacay halkaasi waa wax cajiib ah oo ka duwan waxay muuqaalada baraha bulshada maalin kasta aad ka daawataan taasoo ah ninkan aad u jeedaan gabadh yar oo mindi qoorta uga haya isla markaana waa nin lagu qabtay mid ka mid ah eelboorada ama goobaha xafiisyada ugu muhiimsan ee dadweynuhu ee dalalkaasi Eeshiyaanka dabcan sida ka muuqato muuqaalka halkaas waxaa jooga askar iyo ciidamo kuwaasoo u sheegaya inuu joojiyo falkan ninkaasi waa nin weyn oday oo da ah oo sita mindi isla markaana gabadha ayuu qoorta ka saarayaa mindida isagoo doonaya uu sheegay waxa uu u baahan yahay in loo sameeyo amaba gabadha uu dili doono si isagoo naftiisa daba ninkan kale oo odayga oo filaanada
sito wuxuu u muuqdaa inuu yahay mid ka mid ah saraakiisha ee halkaasi ka howlgalaya. Wuxuu u sheegayaa inuu isdejiyo islamarkaana gabadha uu iska fasaxo beddelkeedana isaga uu qabsado. Ninka odayga dabcan waxay ku tusaysaa inuu yahay qof karti leh oo awood leh islamarkaana ka duwan oo ka caqli badan yahay inta meesha joogto. Sidoo kalena wuxuu muujiyey wuxuu diray fariin geesinimo leh oo ah in nafta loo horgaro kuwa daciifka. Wuxuu leeyahay tuureydan iska deji gabadhaana iska daa waa masaakiine iska fasax inantan yare ee qaylinayso siida oo aniga ay hayso beddelkeeda waxaad doontidna aniga igu sameey. Ninkii wuu aqbalayaa oo isagii ayuu fasaxayaa. Waxaase oggolaaday inuu ninkan kale uu ku guulaysto isagoo xitaa danay ayay ugu jirtaa maadaama ninkan uu yahay nin sarkaal ah oo gabadhan maadaama ay ahayd dadka keliya ee goobtaasi dana gaara uu galay uu ka duwan yahay. Hadda bal nala daawada ee muuqaalka. Midida ayuu qoorta ka saarayaa ee gabadha. Ugu dambeyntii ninkaani waa ninkii odayga ka dhaadhicinayo inuu ku soo wareejiyo islamarkaana uu iska daayo buuqa oo siman. Kadib wada xaajood kadib wuu oggolaaday inuu gabadha ku wareejiyo laakiin beddelkeeda sarkaalka ayuu haystay. Sarkaalka waa mid xariif ah oo ka duwan inta kale oo dadka meesha joogaan. Wuu oggolaanayaa in lagu wareejiyo balse wuxuu muujinayaa geesinimo aad u badan. Dabcan waxaa la isku dayayaa sidii looga badbaadin lahaa ee gabadhan yar sarkaalkan ama ninkan guud ahaantiisa masjidka ninka sarkaalka waa xariif. In yar buu ismuujinayaa wuxuu yidhahda waxa doontidaa lagu sameynaa. deetana ninkan isagoo dadka kale uu ku mashquulsan ciidamadii kale isagoo la hadlaayo uu leeyahay ninkaana haysta aniga waxa doona ii sameeya ama ninkaana qaarijina oo sarkaalka. Ninka sarkaalka daf markii buu ka dafay tuureedii uu ku dafaa waa la isla xarbinaa dagaala dhacayo. Ugu dambeyntii ninka gacanta ayaa lagu dhigay waana lagu guulaystay. sii sheer garay muuqaalkan si uu meel dheer u sii gaaro. haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir mahadsanidin.